عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي أنا أنت كل أنا فرحية مركز فوكان أركتان مالمهن دنبه وحن بيدن فلان إنسان أن أول داد موبلة أنه هاي سدين سوفريسنا بريهن دم على عبان إذا سوفريسنا إنه إذن بارنو أما أنه إذن توكسنو وش واحد يمكن لونه ده أن معلوم بين أنه إذن نكنو أنه إذن هاسنو وحقق روح بدن أما كفي عن إن مرمر ريالتي قال سوي ماده reality maanta noo yaalan waxay tahay gabadh hooyo Soomaaliyeed maamo Soomaaliyeed inay miis noo saaran tahay ayna naga warsugayso sidaan u caawin lahayn waxa weeyaan anagu waan dadaalnay intaan dadaali karnay stillna waan dadaalaynaa mana ka seexanayno aamina dhool ilaa iyo intaan hawsha aan waxaan ku raada aan ka guuleysanayno kama seexanayno ugu horeyn waxaan rabaa inaan cambaareen indhaha ka tuuro أنا وأبيلين to be honest dadka dhiga reer London ummadii reer London oo gabadhu ay ka dhalatay ay dhex joogtay ee la joogtay ilmaha ku dhex kursanaysay waxay u muuqataa dhaliil badan in xaqooda ka soo socoto ayna shaqadii loogu talagalay aysan wadin sidii aan u dadaalayno oo kale inaysan u dadaalaynin gabadhaas mar hore aan hadda waxaan islahaa lacagteeda half reer London way gacanta ku hayaan inta kale la idin ka rabaa laakiin sida ay muuqata halfkiis ka dhaafa xataa inayna wali waxay la rabay iyo wax u dhowtoona aysan wadin shaqadii waxaan idin ka codsanaynaa fanaaniinta especially fanaaniinta anagu shacabkanagu lacag way bixiyaan reality-ga marka laga hadlo intaan ba iyagan ka soo qaadnay aan hayna hadda laakiin albaabadan u garaacnay anaga albaabada ku garaacnay ina idinku albaabada garaacdan baa idin ka doonaya saxil qaantaan fanaaniinta reer London kulligiin waxa weeyaan aamino gabadheeda ka tirsan bay ahayd please fadhiga hada ka kaco waxa ku soo haray Universal TV oo runtii anigu aan ka filayay wax aan in hawshan boqolkiiba 90 iyagu ay maanta gacanta ku qabtaan oo aan u arko iyagana inay ka saxdeen arintan Universal TV aamina waxa idin shaqeynaysaa muddo ka badan 6 sano iyadoo xanuunsan kaliya la maxaan ku raadayay maalin walba dhiiga loo soo sufeeyo iyadoo faashada ku xiran tahay bay qoto wax ka jileys aaway waxa weeyaan company hadda marka maanta shaqo u tago ama aan ka shaqeynayo haddaan xataa anigoo payment ka qaato paycheck ka soo qaato marka allaala markaan maxaan ku raadayay aan ishek ay wax ugu dhacaan they pay my maxaan ku raadayay caafimaadkayga waxbay ka bixinayaan gabar Soomaalinimo walaaltinimo bini aadamnimo idinku shaqeyn jirtay aaway waxaan maqlayaa lacag ma hayna lacagtaad haysaan anagu waxaan idin soo bandhigaynaa maanta lacagtaanu hayno dhammaan idin soo bandhigaynaa soo bandhiga waxaad haysaan waxaad tiraadaan war waxaasaanu haynaa waxaasaanu u baahanahay hala keeno oo gabadhii intaasaanu haynaa waxaasaa miiska noo saaran laakiin maanta waxa aan arkaya video la soo duubay University TV ka socda la igu yiri anama ma daawan laakiin sida la ii sheegay oo dhahan aamina lacag oo haynaa laakiin waxaanu haynaa waxba u baahanahay waxaad u haysaan banaanka soo dhiga waxaad sheegteen in intaas soo wariye oo adduunyada geesooda kala joogan ay aamina arinteeda u xil saaran yihiin in wixii aad haysaan aad loo dhiibo deeq darajo the first day aad soo magacaabateen maalinta ku xigtay qofka ugu horreeyay soo anigu ahaa anigana farxiyaan wacay aan sunnimaadna niri GoFundMe page baan sameynay waanu isxilqaanay ummadanadii baanu dabada ka galnay dadku farxiyo ma seexata habeenii maalin meel bay taagan tahay guri bay hor taagan tahay waxay u taagan tahay waa gabadhaas laakiin dadkii ay u shaqeyn jirtay oo dhacaankeedii dhig ilmaheeda iyada xanuunsan ay idin ku shaqeyn jirtay aawe waa University TV dadka la hadlayo please Abu Karmahdi iyo dadka ay daawanayo dhan oo University u shaqeeya please gabadhaas jawaabteeda aan idinka helo waxa ku soo haray anaga waxaan qabanay farxiyo in kasto iiga xog roontahay nagana wada shaqo badneed kulligano lacagta hadda markaan isku darnay aan gacanta ku hayno maanta caawadan aan idin la hadlayo waa $12886 waa waxaan noogu jiray GoFundMe page-ka iyo waxaan ku raadayay waxaan cash u haynaba waa $12886 lacagaha ugu badan waxaan suugaynaa ilaa jimcada inaan maxaan ku raadayay isku soo ururino barnaamij kale oo cusubna waan wadanaa aniga farxiyo laakiin intaan barnaamij kale u gudbin waxaan rabaa farxiyo arintan ka hadlay in iyaduna wax ka taabato ama santa abo dalmar hadalka lama saarnaanayo muhiimadiisa dalmar ka hadlay waxaan rabaa inaan ka hadlo oo kaliya fanaaniinta Soomaaliyeed ee joogta London inay waxay ahayd ay si fiican ugu kacaan gabadha because qof kasto
وحنوصن كرا قف كستنا حقوق كل كران مركو حنشعلان لها إن لا سوها قربحه إن لا سما أركتين حريسته isku tuurtuur qofku inuu galo ma ahan qof kasto wixii kaga aadan asaka fanaan ahaan inuu sameeyay ahayd dadaal badan uma jeedno waxaan halkan uga mahad celinayaa oo aan hadda uga jeedaa Yurub oo dhaqdhaqaaqooda aan arkaa la ka xaajo wacays iyo nasteexa indho cid kale ma arag dadka inta badan London ay joogaan meesha wax laga aruurin karo ugu sahlan London ay ahayd mana ma aragtay dad badan kama dhaqdhaqaaqayaan marka dhaqdhaqaaq la'aantaas waa idinku eedeynaynaa waxaan idinka codsanaynaa inaad iscaawisaan oo isgarab qabataan asafnaan ahaanan ka hadlooya fanaaniinta bisan ka hadlooya aniga arinta kale oo aan caawa wadano ayaan rabaa dalmar inuu ka hadlo oo ku bilaabo arintaas aan caawa ugu weyn oo noogu muhiimsan waa waji cusub waa hadal cusub waa ii sheeg waa canaan cusub waa waxaan hore loo sameeynin laakiin anagu waan ka soo fakarnay halkaan la soo fariisanay dalmar ayaan ku wareejinayaa inuu arinta noo furo فرحية تنكود ما سنت ولا شيء أنا أرد أرنتان لبو دليرة أو دليرة من جاب لسه من صراحة أي فكرة ده كيني لكن محنكور هذا وحن مركان أرجني أنا لقوا مناطق إنه إذا نترك وتجيب بدل ما صوت راجلين سديد دور راكب بالله تنبك وحكتي كن دور بك وحكتي وتشيدي ودوم وده شقيني يعني to be honest مد والبا جوني دي شقيني يعني منه ترتيب أو شقيني منه أرض هو شقيني لكن لبدي بو شقيني يعني لكن هذا وتشيجن ووتش عصب وأنا سلنا هو كوين يعني وأنا نكبرنا إنه ما ده حدا الصوماليات يو محنكور هذا كمان مالو بالصومالي شوكتو حل كنوع هي إن كنت شاب النمبر أيها نفتر كذا أنا جاي نجمع ديهين كبر إنه أيها كذا ما ده حبي نويهين بل أنا نكنت شاب إنه واحد يجونا مانتا أنا لقى بسن كلام وحنا كنت challenge جرينا شن كون أو دولار أنت مقاعد صوص على أوردين ترين دونا وحنا كل حاجة مده each person $5,000 إنه بحيه وحنا كل بلابنا مدحوينها دولة الصومالية فدرال الصومالية مدحوينا فرماجو إنه بحيه شن كون دولار رئيس الوزراء الصومالية حسن علي خيره إنه بحيه شن كون دولار مدحوينها الصومالي لان مدن أحمد سيلاني إنه بحيه $5,000 مدحوينها قاس إنه بحيه $5,000 مدحوينها بتلان مدحوينها جبلان إنه بحيه $5,000 مدحوينها أحمد نضوبي مدحوينها قلبدوق أحمد دعالة قيل حاف إنه بحيه $5,000 مدحوينها هيرشبيلة محمد عبدي واري إنه بحيه $5,000 مدحوينها كونفور قلبيد شريف حسن شيخ آذن إنه بحيه $5,000 أنت سوى مدحوينياشة waxaan u gudbiyaa maxaan ku radaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari inuu bixiyo $5,000 gudoomiyaha maxaan ku radaa aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi inuu bixiyo $5,000 nin bariyahan dambeeto meediyaha u badan oo aadna dadka bulshada Soomaaliyeed xuquuqa ugu qabta walaal jira gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabit isna inuu bixiyo $5,000 iyo gudoomiyaheena haddaanu nahay qaybta fanka iyo wariyaasha wasiirkeena wasiir Cabdiraxmaan Yariisow inuu bixiyo $5,000 kulligii waxaan idinka fadhinaa jawaab maxaan ku raadayay qofka ugu horeeyo noo soo jawaabana waa qofka mustaqbalka aanu dhihi doono qofkaas waa qofka anaga kulligeena wada matala madaxdanadii baa tihiin ma ahan inaanu focus ka gelino kaliya shacabkanaga waan ogahay fanaaniin fara badan oo dhibaataysan agtiida joogaan waan ogahay problemo fara badan inaad la dhiirgaraynaysan laakiin waxaan rabnaa bulshadiina inaydaan yasin aad maxaan ku raadayay ka qayb qaadataan olo kasta si aanu anagu idin ka qayb qaadano idin la qayb qaadano intaas dowlad goboleedan soo sheegay mid aanan u haysan waa farxiyo ma jiro mid aanan garab istaagin ma jiro macnaha kii dhib wada iyo kii wanaag wada intaba inaan u haysno maalintaanu dhibanahay nala garab istaagi waayo waa arrin laga xumaado fanaaniintii baanu nahay baaqaasana looga soo jawaabo sida ugu dhaqsaha badan waxaadna haysataan muddo 3 maalmood gudaheeda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaggayga haye farxi maxaa ku daraysaa thank you so much bowe warku waa cad yahay madaxda Soomaaliyeed ee aan soo tirinay oo aboowe hadda halkan oo magacyadooda ka sheegay min $5,000 ayaan ku xukunay waa ku xukunay inay keenaan intaas markay ka soo baxaan wixii ka hara anaga ka bayna saan hadda u ordayno orodka u soconaya dadaalka waan wadaynaa ummadda Soomaaliyeed aan la kaashanaynaa arrintan in ma aragtay dadkan madaxda ah inaan ku xukunno min 5,000 waxa kaliftay ama nagu kaliftay qofka Mareykanka jooga ee ka shaqeynaya warehouse-ka
waxaa laga yaabaa bishii oo dhan dadka qaarkood dad badan oo aniga hadda lacagtan sadaqada ka qayb qaatay bishii oo dhan inuu $1000 ku shaqeeyo bishii oo dhan $1000 inuu ku shaqeeyo marka dadka saas u tabarta yar qurba joogta ah wadankoodii aan joogin noloshii la tacaalaya ayaan lacagahaas ma aragtay sadaqada ka soo aruurinay marka waxa waaye markii qof xanuunsado magac leh bulshada magac ku dhaxle fanaana ama abwaana wuxuu doona ahaado qof magac leh markuu xanuunsado madaxdu inay saan oo kale uga qayb qaadato sida marka qofku xanuunsado shacabka Soomaaliyeed ummadii Soomaaliyeed loo yiraahdo in la yiraahdo madaxda Soomaaliyeed horta taas waajiba laakiin lama sameyn jirin waxa la dhihi jiray ummadii Soomaaliyeed maanta waxaan leenahay madaxda Soomaaliyeed markii qof shacaba uu xanuunsado dawladdu way u baahan tahay dawladdu inay caawiso qofka shacabka dawladdiisa u baahan yahay laakiin anigu waxaan dhihi lahaa arrintan aan kala saarno qof shacaba oo masaakiin ah oo aan dibad joogin oo dawo haysan hadduu Soomaaliya ku xanuunsado sida naloo kaga bartayba looga bartay dadka qurba joogta ah iyo ummadda Soomaaliyeed qofka waa loo gurmadaa hay'adaha la raadiyaa ii sheeg oo ma aragtay ka soo qaada xagga inta keena sida ilmihii burooyinku ka soo bixi jireen dad badan oo waxaa jira howlahaas ka shaqeeya ummadda Soomaaliyeed loo dhexgalaayo lacagta laga aruuriyaa bal aan hawshan kala qaadano dadka magaca leh ee fanaaniinta ama abwaanada ah dhiban madaxdu sideedaba inay naga qaabisho qofkii shacab ah Soomaali ah dhiban meeshuu doona ha joogo oo danyar ahna ummadda Soomaaliyeed way ka adkaan kartaa idinkoo mas'uulka ah oo idinkaba idin sugaayo haddana inaan hawshi dadka ummadda Soomaaliyeed lagu sii wada deyn meeshan qurbaa la joogaa qof walba tiisa haysato maalin ilaahay keena YouTube-ka iyo Facebook-ka walaal qofkan caawi ka socoto intaasna ummadda Soomaaliyeed caawiye la leeyahay ee madax hebelay qofkan caawi lama dhaho marka waxa khalad in madaxda la ilaawo ummadina la jaha wareeriyo marka waa salaamayna inay nooga soo jawaabaan message-ka sida ugu dhaqsiyaha badan waan rajaynaynaa waxaan kaloon rabaa fanaaniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay fikirkan aan aragtay soo jeedina ama ideyadan quruxda badan inay ma aragtay nala qaataan inay xataa mid ka sii fiican iyo mid nala mid ay la yimaadaan ideyooyin fiican inay la yimaadaan inay dadka tusaan ama madaxda tusaan inaan dad anagu wax bedeli kara aan nahay dad wax keeni kara inaan nahay maanta hadan madaxda fanaaniinta adduunka kala ahaan lahayn markuu qof Soomaaliya xanuunsado shakhsi anaga naga mid ah dabari lahaa laakiin ma nihin because dad waxaan nahay dawlad la'aan dad waxaan nahay dal la'aan dad intaas sano dad burbursanaya nahay oo meel kasta ka burbursan waa idin salaamayna fanaaniinta Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan baaq u diro meel kasta ay joogaan waa inaad arrintan wax ka dhahdaan inaan ma aragto qof ma aragto masaakiinaho walaalkiino xanuunsanaya aanan lagu eegan in ma aragto madaxda message markii loo diro aadan isgaagaabinina madaxda ma aragtay waa u wada simanahay markaan rabnay inaan saxno waan saxaynaa markay naga rabaan inaan caawinano waan caawinaynaa sande weliga aan free ugu soo heesaynay oo u dhafraynay waa islaamaya inta samaha jecel kor Allah ka dhigo oo waan ka baxay waxaan rabaa inaan ku daro waxa xalay la soo hadlay oo dhalinyaro dadaal aad u fara badan wada maxaan ku raadayay Faisal Xawaase oo Sweden jooga iyo Khalid Yar oo London jooga hawsha cadudaan halka ka wada laydinku amaani maayo waa hawsha anaga aan wadno kaleeto please waxaad haysaan sida ugu dhaqso badan noogu soo gudbiya insha Allah taala kali inaad anaga noo soo dirtaan ma aha noo soo sheega waxaad haysaan si aan ugu xisaabtano oo markaynu goolka wada gaarno lacagta 100,000 ee looga fadhiyo markaynu wada gaarno aynu dadkii u istaajino oo in hawsha halka uga galno inta ka horeysan aan dagaalka u wadno saas aan leedin ka rabaa Australia baafo adnoo ka war sugeynaa wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh